caawa oo kale waa habeen ku weyn dhammaan Soomaalida. dabaaldegga 26 Juun waa astaan qaran. waa habeen ama maalin midda doontaba u bixiyay ay xorriyadda qaateen gobollada waqooyi, isla markaana noqotay markii ugu horreysay oo ay suurtagal noqotay in dhulka Soomaaliyeed oo xor ah laga taago calanka buluugga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. dabaaldeggan caawa ah sidee ayuu saameyn ugu leeyahay Somaliland? maxaa ka jira in calanka buluugga ah ay gobollada waqooyi ama Somaliland aragti ahaan leeyihiin una keeneen koonfurta si loo yagleelo Jamhuuriyadda Soomaaliya? maxaa ka socda caawa ama xitaa aan u qaadanno wadar ahaan innagoo isticmaalayna weedha ah? maxaa ka socon doona isbuucan Muqdisho, gobollada dalka iyo dhammaan goobaha ay Soomaalidu degaan ee 5 qaaradood ee adduunka? horka hadalka xuska iyo xasuusta habeenkan qiimaha leh, haddii ay tahay wax muhiim oo u baahnaa inaan ka hadlo, like sar muuqaalkan si dad badan oo jecel calankoodu u gaaro, iyaguna ay like u saaraan una sheegaray asxaabtaada kale si ay aragtidooda uga dhiibtaan dareenkooda ku aadan calanka buluugga ah. innaguna aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adigoo kale. waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyo la jaanqaadkaaga. ka hor xorriyadda gobollada waqooyi ee 26 Juun sanadii 1960 waxaa jiray dhacdooyin iyo tallaabooyin ku tusinaya wadaniyadii isjecel dhex maray guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waqooyi iyo koonfur. kadib markii gumaystihii Ingiriisku uu ogolaaday inuu xorriyadda siiyo gobollada waqooyi ee Soomaaliya, kadibna waxaa xigay xorriyadda gobollada koonfureed, taasi oo noqotay taariikh iyo astaan weyn oo la xuso mar walba. xuska xasuusta xornimadii koonfurta oo astaan ay u tahay Muqdisho iyo waqooyi oo sumad ay u tahay Hargeysa, sida ay ku midoobeen halgamaayaashii guusha keenay, sida cadaaladda ka fog ee loo riixay siyaasiyiintii ka soo jeeday gobollada waqooyi ee Somaliland midowgii kadib. wixii dhibaataha ay gaaray Somaliland ee dhimashada ay ugu xasuus xun tahay iyo ictiraafka wakhtigan waa taariikh u baahan inaan saacado badan falanqayno, sidoo kalena xasuus mugdiya leh mana ku soo koobi karno muuqaalkan. waxaan diiradda ku saari doonnaa 2 qodob oo gaar ah: marxaladaha uu soo maray calanka, sida loo hadlayo habeenka weyn ama toddobaadkan bilowga ah loo maamuusi doono calanka midowgii 2 gobol ee koonfur iyo waqooyi, iyo gobonnimo doonkii. markii ay xorriyadda qaateen gobollada waqooyi, golaha tashriica ee British Somaliland ayaa meelmariyay qaraar ama go'aan ku saabsan madaxbannaanida Somaliland iyo midnimada Soomaaliya. gobollada waqooyi ama Somaliland si ka duwan maanta la joogo ayay go'aanka madaxbannaanida iyo midnimada ugu farxeen, waxaana la xusaa in iyagu ay jacayl badan u qabeen midowga Jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo dunida ay aqoonsan tahay. sida taariikhda ku xusan 22 Abriil sanadii 1960 waxaa Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir 6 maalmood u socday wafdigii waqooyi iyo kan koonfur. labada dhinac waxay isku afgarteen in 1 Luulyo isla sanadaasi 1960 la midoobo oo waqooyi iyo koonfur ay ku midoobaan Jamhuuriyadda Soomaaliya. kulankaasi ka dhacay Muqdisho waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa mid miro dhalay, waxaana la kala tegay iyadoo labada dhinacba ay farxadi ka muuqato. Juun 26 wakhtigan oo kale 1960 waxaa xoroobay qaybta waqooyi ee dalka Soomaaliya. isla maalintaasi waxaa calanka laga taagay bartamaha magaalada Hargeysa, halka loo yaqaano beerta xorriyadda, iyadoo la qaadayo ka nasiibka nasaar. caawa oo kale 26 Juun 4 maalmood kadib waxaa xorriyadda qaato gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya, waxaana halkaasi ka baxay gumaystihii Talyaaniga kaasi oo koonfurta maamulayay muddo 10 sano ah. waxaa mar kale calanka buluugga ah 1 Luulyo isagoo keligiisa laga taagay xamar xilli uusan ku hoos jirin calamadii gumaysiga. marka aynu u soo laabanno calanka, waxaa jirtay sida la sheego 5 marxaladood oo uu soo maray, balse su'aasha milyanka dollarku kacaysa waxa ay tahay: calanka buluugga ah ma Hargeysa ayaa markii ugu horreysay laga taagay mise Muqdisho? sida uu sheegay Abwaan Cali Dhoof, markii ugu horreysay waxaa laga taagay Muqdisho, laakiin waxa uu ku hoos jiray calamada gumaystaha. laakiin markii la qaato madaxbannaanida, halkii ugu horreysay ee laga taago waxay ahayd caasimadda wakhtigan ee Somaliland, Hargeysa, kadibna Muqdisho. Abwaan Cali Jaamac Cawaale Cali Dhoof oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed uuna adeer u yahay Axmed Cawaale Liibaan oo ah ninkii hindisay naqshadda calanka Soomaaliya, ayaa yiri: waxaa naqshadda calanka la keenay 1952. labadii sano ee xigtay dood badan ayaa ka jirta qaramada midoobay oo diidaneyd aqoonsiga calankan, balse sanadii 1954 waa markii ay qaramada midoobay ogolaatay calankan una aqoonsatay in Soomaaliya ay leedahay calankan. isla sanadkaasi
12 Oktoobar ayaa la arkay isagoo suran Fisha Governo oo ah goob ku taala caasimada Soomaaliya Muqdisho. waxa uu dhexda kaga jiray calankii qaramada midoobay iyo kii Talyaaniga, balse calanka Soomaaliya ayaa ahaa mid aan la simaneyn labadaasi calan oo ka gaabnaa. 1956 markii dowladii Cabdullaahi Ciise la dhisay, waxa uu sheegay Abaan Cali Dhoof in lala simay kii Talyaaniga iyo kii qaramada midoobay. sanadii 1960 26 Juun wuxuu abwaanku xusay in la suray beerta xurriyadda Hargeysa, taasi oo ka dhigaysa inay ahayd markii ugu horeysay calanka Soomaaliya oo kaligiisa laga taago Soomaaliya oo xor ah. waxaana markaasi ay ahayd waqtigii la tiriyay ka nasiibka Nasaar. ugu dambeyntii calanka Soomaaliya ayaa 1 Luulyo isagoo kaligiisa laga taagay caasimada Soomaaliya Muqdisho. caawa oo kala munaasabada 26 Juun oo ah munaasabad qiimo weyn ugu fadhiso ummadda Soomaaliyeed ayaa waxay ka mid tahay munaasabadaha taariikhiga ah ee dalkeena, iyadoo dib inoo xasuusinaysa sidii inaan taagannahay habeenkii calanka la saaray iyo maalmihii xorriyadda. xuska iyo qabanqaabada loogu dabaaldegayo maalmaha xorriyadda ayaa waxaa sanad walba markay ay gaarto 26 Juun ama 27 Juun ilaa 1 Luulyo waxaa looga dabaaldegaa guud ahaan dalka. isbuucanna waa mid ka duwan kuwa kale, sabab la xiriirtay in dhammaan dhalinyarada iyo qof kasta oo jaanis u helay inuu xirto calanka Soomaaliya uu sawirro soo dhigayo baraha bulshada, lagana dareemi doono caawa laga bilaabo ilaa 1 Luulyo sida calanku uu inoogu yahay midka ugu muhiimsan dal ahaan. sidoo kale dabaaldega ayaa laga dareemi doonaa dhammaan gobollada dalka. xisaabta lagama saari karo in dhammaan jaalidaha Soomaaliyeed ee ku nool wadamada adduunka ama aan dhahno 5 qaaradood ay iyaguna si gaar ah ama kala gooni ah u xusi doonaan miisaaniyadda habeenka weyn. adiga ahaan sidee ayaad u aragtaa astaanta qaranka iyo calanka buluugga ah? aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee commentiga. haddii aad jeceshahay calankana u muuji oo like saar muuqaalkan si dad badan uu muuqaalkan u gaaro. aad iyo aad ugu mahadsan tahay taageeradaada inaad nala soo gaartay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan.